الرحيم الحمد لله رب العالمين ساكا oo sabti ah taariikhduna ay tahay 18 bishii saddexaad waxa halkan aan rabnaa inaan warbixin kooban kaga soo saarno dagaalka ka socda magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda shalay galab markii bacda casarkii waxay soo bilaabeen jamhadda SNM-ta ee looga taliyo gobolada waqooyi waxay soo bilaabeen duqaymo iyo dagaal ay teergareynayaan inay ku soo galaan magaalada koonayaasheeda gobolku markuu u kala dhacay oo habeen noqotay halkaas lagu kala joogsaday xalay saddexdii habeenimo markay ahayd waxay ka soo galeen ay damceen inay ka soo galaan magaalada dhinaca bari halka dagaalkii ka bilowday ilaa iyo hadeer uu socdaa wuxuuna ku faafay magaalada daafaheeda oo dhan waxaanu leenahay waxa ka dhacay magaalada oo ay sameeyeen jamhadda SNM iyaga ifiya akhiraba mas'uulka ah annagu waxaanu ixtiraameynay xabad joojintii iyo xalkii laga raadinayay in nabadgelyo lagu soo dabaalo deegaanka laakiin sida caadada u ah wanaaga iyo nabadu ma anfacdo gobolada waqooyi maamulka halka ka jira ee weerarka soo qaaday oo haddana soo jeedinaya eedeymaha uu leeyahay cid baa ay soo weerartay magacyada kala bedelanna u bixinaya waxaanu leenahay waxa ay ka hadlayaan oo ay sheegayaan ama eedaynta ay dusha ka saarayaan dhinacayaga waxa la wax ka jira ma jiraan annagu huwan ma nihin argagixisana ma nihin nabadiidna ma nihin cidda nabadda diidaysa waa la yaqaanaa cidda argagixisadaana waa la yaqaanaa intuba waxay ku kooban yihiin maamulka ka taliya gobolada waqooyi ee uu madaxda u yahay Muuse Biixi waxaanu leenahay ninba waxa la yiri dooro isagoo cunto laba nin cunto kala boobeen baa la yiri dooro dabeedna intii afka ugu jirtay buu laqay war dooratay ord iska tag buu yiri waa doorateen xumaanta doorateen waxaad ka heshaan cidna waxa ka siinina adduunka waxaanu u sheegaynaa iyo caalamka annaga waxaa naga dhabahayd sidii aanu u aqbalay xabad joojinta iyadoo oo dhibkana dul saaran la og yahay ixtiraamka aanu u muujinay caalamka iyo cid kasta oo nabadda raadinaysay waa cid waliba waa og tahay waan ugu talagalnay maanta inay sidaas noqonaysana waa ogeyn haddana waxaanu naftayada iyo maalkayagaba inaanu difaacno waanu diyaar u nahay horena ugu ahayn haddana aanu diyaar u noqon doonaa wixii ka soo kordha oo inta ka bedelan oo khasaaraha ay geysteena oo aanu ka ognahay duqaymaha xad dhaafka ah oo lagu beegsaday meelaha goobaha caafimaadka sida cusbitaalada oo ay u geysteen dhaawacyo fara badan saaka dhibaatad badanna dadkii ka shaqaynayay bahda caafimaadkana ay dhibaato ugu geysteen iyagana waanu soo bandhigi doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inay guul darro kala tagi doonaan doorashada ay doorteenna way ku khasaari doonaan insha Allah biidnillaahi kariim wassalaamu calaykum waraxmatullah ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba